agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha kalluumaysiga Somaliland maamulka degmada Togwa Jale ayaa saaka si wada jira waxay soo kormeereen xarunta calafka xoolaha oo wasaaradda xanaanada xoolaha kalluumaysiga Somaliland ay ka dhistay gudaha degmada Togwa Jale taasoo lagu kordhiyay xarunta shaybaar sidoo kale mas'uuliyiintan oo hogaaminaya agaasimaha guud ayaa waxay si wada jira u soo kormeereen sariimad laga dhisay xaafadaha galbeedka iyo waliba xarun loo dhisay gowraca xoolaha kaasoo waqti xadirkan gabagaba ku dhow waxaana kaasi ka hadlay oo hadalka iskaga kala dambeeyay gudoomiyaha degmada Togwa Jale mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed Hiil Walaal isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee gobolka Gabiley iyo waliba maamulaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee degmada Togwa Jale mudane Mawlid iyo mas'uuliyiin kale waxaana yiraahdeen halkan maanta aan u nimid oo aan kala soo qayb galnay xafladan agaasimihii guud ee xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluunka isuduwihii gobolka iyo gudoomiyihii heer degmo oo ay weheliyaan madaxda hay'adii ee halkan barnaamij calafka xoolaha maalgelisay guud ahaan hay'adda horta aad baan ugu mahad celinayna dhammaan maamulkii Wajaale dhismaha inta leeg ee bilicda iyo quruxda leh ay maalgelisay qaybtan laabkan halkan oo noqon doono laabka calafka xoolaha halkan banka waxa ku dhaqan xoolo aad u fara badan kuwaas oo u baahan ka warhaynta badqabkooda iyo daryeelkooda iyo markasta in la daraaseeyo iyo waxyaalaha calafka kala duwan ay cunayaan in markasta laga warhayo aad iyo aad baan ugu mahad celinayna hay'adda runta waxaan ku cilmi baarista ama researchka calafka xoolaha ama taranka xoolaha waxay noqon doontaa insha Allah meel magaranaysa hadii jeer magaranaysa research noqoto oo wixii magaranaysa hadii jeer la baaray xoolaha ama cilmiga xoolaha laga korsanayo halka loo yimaado insha Allah anigu intii aan hay'adan madaxa ka noqday bishii March waxaan aad ula shaqeynayay wasaaradda xanaanada xoolaha sidii dhismahan u dhamaan lahaa qalabkiisii waan dalabnay oo lagu shaqeynayo oo isaguna intaan sanadku dhamaan ayaa la keenayaa oo la rakibayaa tababaradii waa bilaabi doona hay'ad dhakhaatiirta xoolaha ee xuduudaha lahayn ee Sweden nala shaqeysa ayaa iman doonta oo tababarkii iyo u bilaabi doonta hadda dhismihii baanu dhameynay kormeer baanu ugu nimid inaan qandaraaslihii kala wareegno waana isku afgaranay wasaaradii la wareegno qandaraaslihii qalabka marka la dhameystirtana handoverkana wasaaradda dib loogu wareejin doonaa ujeedada ugu muhiimsan ee qaybtan laboratoryga loo fuliyay waxa weeye sidii ugu qayb qaadan lahaa muxuu ahayn horumarinta calafka xoolaha tayadiisa baaritaanka caafimaadka guud ee xoolaha guud ahaan baaritaankooda haddii kuwa deegaanka yihiin iyo haddii ay kuwa magaalada lagu qoliyo loo baahdo halkan la keeno in la hubiyo xanuunada muxuu ahaa zoonosiska dadka iyo xoolaha kala qaadan haddii loo baahdo in lagu baaro waxyaabaha basic laboratorygaas muxuu ahaa shaqada loo baahan yahay oo dhan ayuu laboratorygeeni qaban doonaa intaa waxa uu dheer waa markii u horeysay ee laboratory ku saabsan calafka xoolaha ama feed analysis lagu sameyn doono halkan muxuu ahaa Togwa Jale ama magaalada Wajaale asna waxay horumar u tahay oo ay wax badan ka tari doontaa xaruntan oo wasaaradda xanaanada xoolaha ay ugu talagashay horumarinta xaruntan waxay noqon doontaa xarun lagu baaro tayada calafka xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliya gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina ka warbixiyay kormeerkana uu maanta ku yimid magaalada Wajaale agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland mudane Cali Xuseen Nuur isagoo faahfaahin ka bixiyay kormeerkana uu ku yimid magaalada Wajaale iyo waxyaalaha uu daaran yahay wasaaradda shaqada aan qaranka u hayno inaan maxaan ku raahdaa aan kormeerno shaqooyinka socda inaan maxaan ku raahdaa anu kurgalno ayuu safarka iyagan maanta u daaraa gudoomiyaha hay'adda inaanu maanta meeshan iskugu nimaadno oo gabagaba ku dhow qaybta dhismuhu ay dhamaatay qaybtii laabka iyo qalabayntii ayaa maxaan ku raahdaa dhiman iyadana waa la dalbay sidaa uu noo sheegay wuxuu markaa laabkeeni uu qaban doonaa inuu qabto laba shay qayb ka shaqeysa amba lagu ogaado tayada calaf amba food analysis iyo qaybta maxaan ku raahdaa xoolahaba shaybaarkii dhiigii iyo maxaan ku raahdaa wixii qaadayay xanuunadii lagu waa xarun weyn markii ay wasaaraddu u aragtay meeshan muhiimadda ay leedahay ayaa xaruntan xarun cilmi baadhis inay noo noqoto oo sida wasaaradda beeruhu abuuriin ay u tahay meel tiirka iyo cilmi baadhis ay noqoto annagana ay Togwa Jale noo noqoto meesha maxaan ku raahdaa xoola naaxinta iyo calaf aanu ka bilowno annagoo bedelayna nidaamkii hore ee xoolaha aanu dhaqan jirnay ayaa meeshan waxaan doonaynaa inaan ka soo saarno formulooyin cusub oo aan xoolaheena ku dhaqi doonno waayo meeshan waxa laga helayaa loodii baa laga helayaa dhigi baa laga helayaa wixii aan xoolo dhaqanayn waa meel maxaan ku raahdaa ku habboon kaliya kama wadno Wajaale xaruntan waxaanu hadda dhisanaa wasaarad ahaan ibadii Wajaale qayb kamid oo caan iyo lagu iibiyay hilib kawaankii Wajaale ayaa iyadana maxaan ku raahdaa socda imika oo iyadana kormeerka shaqada ku jirta oo iyadana soo eegi doona hadii la yiraahdo waxa soo dhan waa markii aanu aragnay baahiyaha Wajaale ay qabto mail ayaanu maxaan ku raahdaa aan qabanay waa xaruntii saddexaad ee Wajaale maxaan ku raahdaa ka furno muddada 2 sano iyo barka ama 3 sano ku dhow ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu joogto Khadar Cabdi Cabdilaahi telefishinka caalamiga badda 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajaale ee gobolka Gabiley intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto ma ogtahay
inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay. waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave-yo, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. account lacagi ku jirto oo banka dahabshiil ah. dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111. hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 4 afargees. tayo waa Telesom.